sharaf ah inaan naftayda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyeeyo cunaqabataynta hubka ee la inaga qaaday caawa. cunaqabataynta hubka ee caawa Security Council-ka inaga qaaday waxay ina saarayd muddo aad u dheer laga soo bilaabo 1992. waa cunaqabatayntii ugu dheerarka badnayd ee abid Security Council-ka uu dal saaray. waa go'aan taariikhi ah oo aan muddo dheer ka dhur sugaynay dadaal badanna u galnay ilaahayna ugu dambeystii caawa inoo xaqiijiyay. cunaqabataynta hubka oo la qaado Soomaaliya maxay ka faa'iideysaa? waxaan ka faa'iideynaa waxaan fursad u helaynaa inaan si casri ah u qalabayno ciidankeena ayada oo aynaan caqabad kala kulmaynin, ayada oo aan laynoo kala xulaynin hubka ee nooca aan hubka doonno aan ku qalabaynayno ciidankeena. waxaan awood u yeelanaynaa inaan dalka ka xoreyno khawaarijta si fudud maadaama aan markii hore isku awood u nahayn dhinaca qalabka marka laga fiiriyo iyo hubka. waxaan insha Allah ciidankeena ku qalabayn doonaa hub casri ah oo awood u yeesha in durbadiiba laga nadiifiyo dalka khawaarijta. waxaan sii wadaynaa oo noo fududaan doonta horumarinta iyo dhisidda xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku filaada inuu xuduuda dalka iyo amnigiisaba gacanta ku dhigo. waxaan si dhab ah u helaynaa gobonimadeennii iyo madax bannaanideennii iyo sharafteenii iyo karaamadeenii, taas oo ku xiran inaan helno ciidan Soomaaliyeed oo qalabaysan oo amniga dalka gacanta ku dhiga, isla markaana aynaan u baahnayn in cid kale ay amnigeena gacanta inoogu hayso oo aynu gaadhno isku filaansho dhinaca amniga ah. taas ayaa aasaas u ah gobonnimada iyo madax bannaanida qaran leeyahay, waana midda inoo xaqiiqoobaysa ilaahay idankiisa. cunaqabataynta in la qaado iskamay imaan, balse waxay ku timid dadaal dheer oo ay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay galeen. dowladda waxaa la hordhigay shuruudo badan oo aad u adag, taas oo ilaahay mahadiis aan awood u yeelanay inaan buuxino dhammaan shuruudihii caalamku naga rabay, taasoo keentay in nala aamino isla markaana lagu qanco in dowladda Soomaaliyeed maanta laga qaado cunaqabataynta hubka. waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo Security Council-ka iyo dhammaan xubnaha ka tirsan Security Council-ka. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego oo la wadaago sanadkan dhammaaday ee 2023 wuxuu la dhammaan doonaa guulo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed u xaqiiqoobay, gaar ahaan bishan aan inaga dhamaatay ee 11aad iyo bishan ugu dambaysa sanadka. waxaa maalin dhaweyd ilaahay inoo xaqiijiyay inaan ku biirno suuqa weyn ee East Africa oo dadkeenu iyo dalkeenuba ay ka faa'iidayaan. dadaal dheer oo u galay kadib waxaan maalin dhow aan ayadana u dabaaldegi doonaa deyn cafiskii oo ah in 5 bilyan oo dollar oo deyn ah oo culays ah oo dalkan saarnaa laynaga cafin doono, aynu u dabaaldegi doono, caalamkana aan u furmi doono dhaqaale ahaan. dalkeenuna uu awood u yeelan doono, fursad u heli doono in investment lagu sameeyo oo la maalgashado. caawana waxaynu u dabaaldegaynaa cunaqabataynta hubka oo la qaaday. maalmahan dhan waxaan u sheegaynay shacabka Soomaaliyeed in cunaqabataynta la qaadayo. waxaan u sheegaynay in deynta la inaga cafin doono. horey waxaan ugu sheegnay inaan East Africa ku biiri doono. waa 3 hadaf oo waaweyn oo inoo xaqiiqoobay oo dalkan tusinaysa inuu soo laabtay oo karaamadiisii iyo sharaftiisii uu la soo laabtay. waxa u dhimanna insha Allah ujeedooyinkan waaweyn ee la xaqiijiyay ay dhamaystiri doonaan. waxa inoo dhiman oo dhanna waan xaqiijin doonaa. Soomaaliya waxaan leeyahay guul ayaan u rajaynayaa. ciidamadeena qalabka sida guul ayaan u rajaynayaa.
shacabka Soomaaliyeed mar kale guul baan u rajaynayaa hambalya ayaan